mudane waxaan la yaabanahay ninka mar walba isagoo kaliya isku mashquulsan sababtana ma aqaan aniga sidaas ayaa wanaagsan inuu isku mashquulsan haddii uu aamusnaado dhibaato kale annagana dan ayaan noogu jirto inuu isku mashquulsan studio farm approach Mogadishu त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् हर 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 महादेव। आप विराजे गंगा तट पे नजर रखे हो हर संकट पे नजर रखे हो हर संकट पे जटधारी लटधारी हर पग पग साथ में डोले बम बम बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी बम बम बोले बोले काशी हर हर गंगे भोले बड़ा दयावान है ना मिटने लकीर दे जिद पे अगर आ जाए तो समंदर चीर दे जय शंकर बोलो जमकर ना तीसरी आंख ये खोले बम बम बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी काशी की होली ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली। जय शंकर जय भोले जय जटाधारी तूने रची है ये दुनिया सारी भूत परेतन की नाचे है टोली जब खेली जाती है काशी में होली लाल गुलाल में लाल गाल पे लाली सामल डालूंगा भरी है पिचकारी केसर के पानी से भिगा दूंगा भांग पीऊंगा खूब घोट कर सबको संग पिलाऊंगा आज जाओ लेना छूटे जो वैसा रंग लगाऊंगा। ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली। थोड़ी मिला के मीठे रस में धोखे से भांग पिला दी मुझको मजा आ रहा है ये कैसी मस्ती मिला दी आया है झूम के फागुनवा भिगोए चोली मेरा बलमवा आया है झूम के फागुनवा भिगोए चोली मेरा बलमवा होली है सरारा होली है पुराना मानो है होली है आया है झूम के फागुनवा भिगोए चोली मेरा बलमवा रे तेरा बलमवा रे रंग लेके गुल्लू रंगवा लगाए रंग तेरा बलमवा रे तेरा बलमवा। काशी وريا استاك وريا يقول له كاسي ayaa laga badshay hadad nagaari wiisa gacmaha ayaan ka jira ogow haweenkaad fudulinaysa misano waxaad leedahay gacanta ayaan ka gooniyaa adii saaxiibada hadii madam haweenka fudulisiin qoorta ayaan ka siiba ballan waa dani waxay kugu jirtaa dabagalka aad ugu hees inaad iga deyso dabagalkan aniga waa hawshayda mana arki karo gabar masaakiino oo la dhibaateynaya haddii caafimaadkaada rabto isku badnaa haweenkaa dhibay ina keena hayna maryaaba dumarka jaamacadooda ma ka bixi karaa aniga bootab ma ka sheexaysid min adwaabka ayaa banaan xatiri ma wax ma ku dhigin adilo umaleys aad iyo aad u mahadsan tahay naqwar ya abo waa maastaa lagu dhayno anaa mudan inaad dhaad malga rabo seewa yaa gabadh uu jawaab noo seewaadi anaa mudan maahan adiga mudan waay wax walba lagu dhayn horta in lagu jawaabo haboomo mid aan ku weydiiyey saaxiibkaaga sidaan lami waa aamusan yahay mar walba dabeecadiisa saacan ku dhakan noocaana la iska jecel yahay ka warrab ajudul bande adana judul bande mar lama judul bande adana mar saddexaad jubul bande ajudul bande adana judul bande ajudul bande
ninka haddii kuu sheegay siyaasaddaa la jecel yahay baryahan dadka dhan baa say u coday hooyeen sababtoo ninkan lacag fara badan isbankiga ku shubtay goormee baa makasii 5,500 markii waddanka laga mamnuuci ilaa iyo haddaan ku dhe akoonkiisa waa sii kacooyaale babri maxaa ku hadlaysaa ninkan warkiisa ha dhegaysanin isku qarxiska filmaanta talaagugu badsaday koodhe warkiisa dhan talaaguhu noqday waan ku salaam mudane kasi waxaan u baahanahay waraysi inaan kaa qaado si aan bulshada ugu soo bandhigo waraysi anigu waraysi ma gaarisay waay waraysi wax weyn ma ahan hawsha aad qabatid ayaa dadka uga sheekaynaysaa maya beledkan war laguma sheegi karo wala siraadsaha kowdha tiyada kale shaqooyin fara badan ay yaala marka waraysi waxaas ma geli kari kowdha nakeen soo ful mooto ardhiiga seewa yaa qaadiga warka badan iga dhaafay qalqaalin caana noqonayaan ku dhaa qofta ku waraysato joornaalada lagu sawirad ardhiiga waxa iga taginay suuqiya soo siyaa soo ful dhiig hay sug cishi abaarala soy mar soy ke abo shidaalkan halka litra ku soo jibay bye waan ku salaama kaashi ya waa kaa qada adiga maad timid halkiisug ushaanaan dhigahaahe hoy yarka qabo riyaacoon ma soco kartaa wariyaacoonka hawsha dhammeeya qabyaha uga tegin run ahaanta shaqadaada aad ayay culus tahay sababtoo ah dadka bini'aadanka ayaad gubtaa aniga dad ma gubasay waa meydad kale waay meyd maa dad la dhahaa marka waxaan rabaa arrimo adiga ugu saabsan inaan qoraal ka sameeyo wax aniga igu saabsanaa mase dadka kale ka wadaa arrimo adiga kugu saabsan dad fara badan ayaa halkan jooga laakiin halkaa shay ayaa horteeda taagan gurigayaa kugula noolna ha soo dhaaf dugdugyaa musbaarka iska ilaalino ha soo dhaaf waa aabbaheeyaa barisho wanaagsan awbaari maanta hanuuna u soo daaday shaqada xawli ahayd baabano waa kan wiilkayga ma imaateen adigan ku sugaayay hooyaday waaya aydanaya hooy laakiin walaashay aw gangaa gudaha ku jirta gangaa waay kana walaal walaashay gangaa waa tanaya gabadhaanna waa gabar cusub waxaa layidhaha double impact girl magaceeda dib ay nooga sheegay waa laga yimid aan ku dhaha lagno teeda kale wariye waa gafsan waxayna rabtaa dadka inay xoogaa waraysato walaal shaha soo samaynano shaha usoo samayn dasha usoo samayso gurigeena waqti walbay ku soo noqnoqonay waa ogtahay dhib ma lahan marka labaad ayaan shaah cabaya kaashi familkaaga aad ayaan uga helay waa dad wanaagsan run ahaantii qoyskeena waxaan ku dhahay fuul bulshaan ku dhaha walaashaa ka sii darna ku dhaha walaal bal ka warama haddii aan hal sawir idinka qaado yaa diida sawirkaan baan rabnayba anaga ay baari sugbe sawirkii intii la gaarin waxaan rabaa inaa ii soo bixisid dhar cuseeba kii ciid calaashaan abba hal joogleeba ku yaallay iid weynada ninkayga adiga dharka ku dambeeya anigana tinta muujeedada iga cirada soo mudaysa cirada maxay tahay hooye ciro lama diido ceebna ma aha geedaad joogtaa marka isku kalsoonaa dadka qaar oo kale ma tiidi hay nasawir waa isku kalsoonahay diblow hay sorry taye diyaaraan nahay kaashii dhowl caddee haye kaashii waan sii baxay haye sawirka makeup mariya waayahe banaaris goormay ugu soo wareejinay xilligaa diyaarka tahay waayahe beri ka waran haddii aan wada kulanno warcad waay okay bye miraayadda isku fiiroosa iyarkay ha adan kula hadlooyaa maxaa jir isku fiiray miraayadda maxamed dukhoti haa walaal maanta aada u nuuraysaa anigaa ku dhahay qof kale isku nuuraya maasqawaahe xabadiyas u socdaan umaleeha maxaa ab waqti walbaad ugu shidataa tooskaan iga dhaafno aan kaa noolaadee awbaari faasadan fijirkiis igu faaya akhay haddana waa ku fahmiye iska bax tartiibka waxaa loo leeya akhay aniga dhallinyarnimadii baa soo mariye jaraa'idka waxaa qoran hay-ado fara badan oo rabaan maalgashi inay ku sameeyaan dalkeenna jaraa'idka wax muku taraa hortaada fiiri yaa waay dhiiga waa kan hallitir la siigu soo shubada jeeras igu dilid yaa saaxiibkii maanta nuurusa shaati gacmo dheer noo soo qaadat intay u socota ii sheekay
luqaafo iyo lugooyo ma idinka dhammaanayso qofka shaati cutub hadduu soo gato waa daba gelaysaan se uu ku soo gatay intuu ka keena la taagantiin war xaasinimadan dhaaf yaqeen qofka wuxuu u toosi karaan waxaana isku toosi saaxiibkay maanta meelaha u socotaa waa fahansana ana maka haro iyaa ku dheh horle ku raaci karaa iga joogan tee uu joogaa sawa adi qofaa barat annaga dhammaan ilmaamay ballanta keligay le waa adiga maaha saaxiibkay degan ku dhah dhaqso hayaan ku hadlayn haddii maya meelaha u socda degan ku dhah baxaaga ku dhah bartee bartee maxaa ku dhaarwaa sababta aboogaas xanaaqiyaaga celiyaha bartee leega celi jirta saaxiibkay naxariista ana igu dhamaatay laba war oo nadiif hadii la sheego waa qaadaha iga hor leexda nooc mooto soo أبو موتو قراب لك meelaha ku dhedheeliya idin koriya joog afarta xaafadood luudanka ku soo wareejiyay koo dhow lacaga kaama raba iska deg marka meeshaan ku naso saaxiibkay waa kuu dan sheegtay see waa yaaqi hortan sheegasho ma xariifkan galbaan ii weydiiyey uu keelana igu fiicnaa laha horta gabadha akana diinku weydii hadhow waaba kan ookiyaalo ma agteeda ka dheer kanan bixiraha no ninka ookiyaalo jacsa halbaan qaasa saaxiibkay u sameeyaa ku dhaqsa maxay sugo saaxiibkay meel socda mogta diyaar waxa ku dhacay igu hal dan siyaasa saaxiibka ban fiican wali kan awalaakin maxaa ku daray dhaqsano waqtigan uu socda la saaxiibkay waa kana waa baxday yaa ka dambe mogta ana ku dhashay ana dhawnaya marar maxay sameeyay bax marwo seenahay miyay arkaysaa fiil waa waree kaashi aad iyo aad ayaad u nuuraysaa maanta marwo naga dhaaf yaaqe mar kale marwo ha igu wicin rafiina igu wac sababtoo ah labadeena saaxiibo ayaan noqona soo maahan okay abay saaxiib may rafiina dhib male waa ku dhahaa hay qalad ay fahmaya sidaas ayaa wanaagsan hadda damaashaadka xageen ka bilaawna may magaaladan dhana wada shidan moogtahay intaan ka bilaabaynaa intaan sheekada ka bilaabaynaa waa la gacan galay qeedii cuntay gadaalka saarigayga wuu wasaqooba kabar adigana waa igu qoslaysaa maxaa sameeyaa hadda may soo dhaweyn waa magaaladan waa la wada halaysan yahay baashaan xoogaa hadday kugu xarto waxaa waaye webiga tagno kaale sabax ha u bixiya tartiib saariga kor u qaad ha ku fin isbitaalka ma dhaweey एक चुटकी रोजाना तुम हंसी दे जाना मुट्ठी भर कुछ सांसें पास में रख जाना बिन शर्त जो बांधे हमको जो पहुंचा दे मुझको वो रास्ता तुम ले आना वो रिश्ता तुम ले आना वो रिश्ता तुम ले आना वो रिश्ता तुम ले
kaashi waqtiga si xooliyo u socdaa soo maahan shalay waxaan ahayn laba qofood oo aqoon aan isku lahayn laakiin maanta aqoon wanaagsan ayaan isku leynaa maxaa kugu dhacay maxaa laamusan tahay maya waxba iguma dhicin caadi leh waa iska xoogaa yah waayay haddii aad ila cashaysa ka waran caawa maya waqti kale xilli kale mayno oo ku barya caawaan rabaa maya caawa ma anfici karta sababta waalidka ay sugaya soo maaha marka waqti kalen ka dhiganaynaa dhib male haddii ay sidaas taanaabi ila cashay ku dhehayno mar kale aniga marka hore ayaan ogaa inaad ii imaanayso hore u soo gal marka hore haddii ay kaa haysa inaad ila joogto sababta haddaayama talaabta u samaynaysa maxay tahay run ahaantii hadalladan adigaan kaa bartay waa caadi cabitaanka baran bal horta ma lagu sarqaamaa geeddaan saa'id maahan waa caadadaysa saa'id ahayn in lagu sarqaamo lagu dhacdhacayaan moodaa xoogaa yar oo saqradaa ku jirto oo cab si tartiib tartiiba u dareemaysaa caafimaad ku cab saana ka fiican midaan maqlay hal mar ma ku dhahaa haa way dhihi kartaa gabdhaha markay cabitaanka cabaan xaaladooda asmaha la yidhi anigaba xaaladeyda ma fiicin sababtoo ah cidlada ayaan ka weheshadaa yaa kula degan cidna ilama degana walaalkay iyo aabbahay anigoo yar ayay dhinteen waa karta hooyaday ayaa isoo korisay bilooyin ka hor ayayna dhimatay hadda kaligay ayaan gurigan ku noolahay keligaa ma tihid maanta anigoo saaxiibka ahaa garabkaada taagan waa kuwa adeega nolosha farxaddeedu ma ahan hal saaxiiboo keliya inaa yeelatid ee waxay u baahan tahay qof nolosha kula wadaago inaad haysato diyaar ma u tahay qofka nolosha ila wadaagi lahaa inaad noqoto maalada adiga waan kula kaftamay waayo waxaad ii sheegtaa iskuul ma gelin miyaa weliga may aabbo lacag ku filan muusan haysan moogtaa marka oo laba qofoodu wax ku baro laakiin walaashaya fududaatay asan waqti walba la adeegi jira laakiin dhanka dhaqaalaha sababtoo biilkan raadihiin asna waa raadihayna walaashaya saasay wax ku baratay walaashaa saayida u jeceshaan u malaynaa riidadeed inaan jecladoo ku qasbanahay wax yar u kaadi bal raashinkian ilaawiyuusan guban waan soo fiirinaa qaadada kaaliga soo gaar gacanta ayaa iga gubatay maxaan sameeyaa raashinka intaan ku mashquulsanaa gacanteedaan bilooway fiiriba
واسكو دردر كل وانكو سلام كاشي هاي وكا هذا الصبح نما وسوي ستة سواه ما حوسه هرد لما يسوي وحضر ما جرس ما يدري قرقين اكتيس ايام مرة وحس ده هراء السلام مصاصة حشيش جعلي مركي إماد هذا المعانا كبها ونكو والدينتي سأنا هذا الفيعة من الهض الله أبوك وريا مرتدو تاقل ميا سنة وهاد ليسا ماذا نسكو حشونين كأمس ويلكا وحو دونا سميستي جاكسي هوي جاك دب ماليا سودو أبو اسكا كفت مويا دب مالهن ولاasha ganga ayaan hadiyad u keenay والله هو تصبر ganga kaalaha meesha hadiya lagu hadiya naga dhigan ceeb waay walaasha saan waa ayad jacaysh hadiyad walaal adiga hadiyad ana la keenay adiga sarku maxay oo iga qabal kan miya halo وحركي walaal waayahay ana imaanay maanta kana jaamacad ku aadaani waan baxaya sababtoo shirmiima ayaa ii soo baxay mac salaam ay ma dhiman ay hadda waa xirnayno ha soo xiri isa soo shidan ku dhahay beledka qaaci xagga tag guriga gabdhaha dhaadheer iyo kuwaan gaabanan jeclahay aniga ma ogtahay jecelkood khatar waay intaa waa kuwa gaagaabana jeceshahay laakiin adiga gaagaabtaas laguguma talagelin ee aniga ayaa laygu talagalay saaxibo qoftaas inaba caadi maan haddaad gacanta ku dhigi lahayd waa ku raxaleed bravo naagta way shidantaan way shidantahay koo dhisigaar caboogan karti iyo awood ayuu u baahan yahay qoftaasna karti looga hortago ayay u baahan tahay iska karti lagu gaara horta ninkan mootadaan u wataa mootadaanna maba geeyaba labaad webigaana la keenaa webigaana lagu dhaqaa lacag la'aan darteed le waaya u maleynaa sheekada ani waaba la yaabana war maalintii 3 jeer oo dhaqaale kaan bendis may mootaa lagu qafiifan ku dhacay saaxiibkay usne runta leen ku jecelahay ku dhacay kana digisi daran bajaqdaas ba gacanta ku haystaa adi maxaa uga dhigan weydan maxaa uga dhigaa aniga awa ii maalinan ku dhahay shiirkeeda caafimaad ah maba ka dhaqaaqayba hoosteed lees jooga maxaan ka ogaa gabdha maasta soo koray aad lee sheeg ad maxaa uu qaaday beslak kan maaba qoftii la wareegayana maradan ku jira nin raga kuma jiro haddii xabaddaas aan gacanta ku dhigo ee weliba xaafadayda aan geysan waayo مجنين دين آيه مجي چانين آيه رنجيلا كاشي مال مكو أركتين إيش أقبل كاشي ما كستا أركاسي مايا حتى ما أركتن كودا هذا مالهان أصوريها وأركاي قال لكن وحي شاقنا بابا إيش على الشهلة إلا بطش بريك عن كل واحد بنت ماين راح تجي والسود وادين كور كاشي ما أنت ودنا كورادنا أديكنا هل كان يدسك فريسة ما حكوا قداي مروك أنت كاسة وجهه كالي ولا شاوي مقنتها سيدي جامعة واد ما بس ولا بنين سوي حجران ولا شيء ولقيت جامعة هذا كما صوتها أنا رادي واي أنا ودي أو صوفول أنا صوفول إسحجي أو بار واحد ما جراه واحد يبغى ما كنت وصلتها موبايل كده حتى ودنسي هي أيضا تلفون ما قبين يسوي حجران تيجا كيف تلف كيس يسي وي هي ستي هو إذا يبها كاقريان أرنتاس أو نو وكمان هدي ما الله سوكر مصبارك اسكجري وي يا ابو جنقاه ولي ما يسلم مياه أو بار مروجانا يا ماشي كبحدنا ما أوجي يدو جوكت لهم أوجي هاي مركب بحي سميلان هذا كم يسندين مياه ما يقولك وحبا إيه ما يسشيء ويسك بحد لكن ما يقول شيء واستلافن له ستة قبضاس ديب كدن أديك هاي إن أديك قريسان لما بهنا إيش شكتين هيت صدق وحسوق قرن كور كاشين كان جامعة كصوفيرين هنا وي أديك أنا بالاتين وضع هوشان تم 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 تنتن قلولك من مد وقبر يا
هيا سوق بمال ترى حالة سبع أنت وصلت ولا شيء جنجاها يا مغن جنجا أنت الله واللي بجامعة جنجا سكان قتي يا أخي وأنا أقول ولا شيء وكم مقعن كده جنجا إلا إساكي جورجا كم قنتها سوى حجنا هو حتى ولا يا أخي سعدان جامعة واحد أنت هيان كده هي مرهرنا أرديت لك في صحيح حلقة يا بس كمان جودها إلا وقصة حيرتان كسوفير نكورن يا أخي أنا ماشي مسؤولا كأهي إذا كان ماني توه إسكبح يا أخي هالمرة لا إن نافيرس إسكودا يوكبريا هدا يفهمتين تدفيع أنا تين ساسا وقات العقتان ما أنا مخاذ لهن لكن واحدة أشيغني أدي شيك تيسك إلالي صباح هذا يا أبوي صوت صعدة مقول صوت صعدة فصل كلام أناني هو قايم هي يا هواي أنت نلكيس ودن سنة بي يا شذي هذا وصدن سنة أوجاي صباح يا أخي كلني والله شيء ما له هنك ما له كمان ناقو حاليري ننتهي شيء في ذا أنا والله أنا نقول يا وإحنا يا مامله ما حواي عبتنا كنت أدن حوا أيضا أيضا ما كنت عليه وحق قلدنا ما كنت سمين قبل يعني إنجا بتبخسن كبحهم كده صباح هيسوي حجرة سو هذا askari wax saas weyn maaha walaashay saaka jaamacad soo aaday ilaa haatana lama hayo hooyana waa murugsantahay war gabdhaha dhibaatooyinka iska sameeyaan ayaaba sidana meelahaas iska soo askari gabadha walaashay noocadaas ku tilmaamaya adiga qaylada faraha badan iska daa waa kuma ninkan hadlay mudana ninkan qaqaylino kaan la hadal bal galeex ayo maxaa u baahan tahay hoosadaan dhan ayuu ku reey fadhiisan ku dhah اجلس waxaan ku weydiinaa magaca kasi maxaa lagugu daraa kasi jodri kasi jodri waxaan kaaga digaa inaad buuq iga dhaafto halkan gurigaaga maaha la soco dhegeysa aniga saxafiyad ayaan ahay qof bini aadan ina sidan ula hadasho looma baahno waajibkaagu wuxuu yahay dadka dhibaataysan oo halkan kugu yimaada inaad saacido meeshaan ila fiiriye hadal iyo buuq ayaan diidanahay hadalkii buuqi layna wadaa ruuxay dhay saxaafadda ayaan ka tirsanaa qof wariyaana waan ahay habeen saqdhaxa ayaan nin la socotaa ceebtaas ma ka xishoonaysa miya adiga taas wax kaa quseeyo ma lahan wax kaa quseeyo male ma itiri okay ha warqaddaan qabo qalinkaanna ku darso wixii sharciga adigaa yaqaan wax walba oon fahmaayo meeshaan igu qoro keliya hay soo hadal marwo gabadha walaashay saakay kollejka soo aaday gurigana dib ugumaysan soo noqon galaaskeeda ma ii sheegi kartaa taas kuma dambaabi karaan ma aqaan waayahay magaceed gangaa jowdri waay okay waxyar sugyaa gabaraa la raadinayaa magaceedana gangaa ayaa lagu sheegay waxaan kaa rabaa galaaskeeda inaad ii soo gudbiso sida ugu dhaqsiyaha badan ma aqaano gabdhaha sanadkaana waxay rabaan ayay iska samaysanayaan maba ka fiirsanaya waxay samaynayaan mayaca iyo kuuskuuskaa laga badiyey ma hubtaa waayahay idhegaysta liiska ardayda markii la baara gabar gangaal dhaha magaceeda waa laga waayay siday la tahay akhbaar khaldan ayaad hesheen sidaas darteeda halkan ku timideen marwa macquul maahan midda sababtoo ah kuleejkan ayay dhigataa gabadha halkana dhiganaysa kolley aniga war waa idiin dambeeyey waxaan idiin dhahay gabadh lagu magacaabo gangaa kolleejkan ma dhigato si kaloo aan wax idiin fahansiiyena maba aqaan suuragal maha gabadha walaasha subaxii soo tegaysa iskoolkan imaanaysa meel kale ay aadama subaxii way soo tegaysa laakiin iskuulkaa ma imaani meelo kale inay aadaan laga yaabaa oo danaheeda qaaskaa ay raacad maxaad ku hadlaysaa walaashay kollejkana imaanaysay wayna dhiganaysay xisaabtanaan kayga idinkama yeeraayadna see waay ma maqlaysa naagta ku awarta anaa walaashay kollejkan keeni jira waxay rabaan hadday ku hadlaan xaqiiqdan ka hadla anigana ma ka yeelaan ku dha keliyaha lagala baxmaya walaashay waa hubaal wax lee khaldan anigaana soo ogaanay ee waxaa ii sheegtaa jaamacaddan meelaan ahayn ee aadi jirto mayaa jirto kaashi aniga arrintan waa fahmi laahay qof ayaa jiro oo ciyaartaan la ciyaaraayo qofkaas marka waad ku qiyaasaysaa qofaad cadab isku tihiin mayaa jiraan
aaway sugad ya ha iga celin qofna ya waryo ninka dheer walaasheenan ku sheeg aaway waxaa ku qoslaysaa afkaada ka tumaya halkan ma waxaad u timid inaad walaasha ani weydiiso dhegeysta ninkan war gangaa aaway haddii aan walaashaa meel uga xadabto kuma sheegi lahayn aniga walaashaas ii weydiinaysa ii sheeg bal haddaadan walaasha ii sheegin hooyada ballan wiil la'aanaan dhigaa ee gangaa sheeg gangaa hadda aniga meel kuma ogey haddii aan ogaana xataa kuma sheegeen maxaad iga qaadi kartaa iska bax saaxiib weji kala arki kara kaashi iska dhaaf ninkan haddii kale uu kugu dhimanaya inuu dhinto miyaad rabtaa walaashaa meeshay joogta anigaa kuu soo ogaanaya isdeji marka balan waan ku dhahay ninkaas ma dhaafay ka arsanaa sisna baduu jiile barkiin maa ku dhacay maxaa waay gabartaas haddii kaa celi lahayn saacadaanaan ku dhahay waa baabi ile daddan waa runtaada saaxiib waa ku culayska nin waala maan iska celi karnaa ninkaas weli baxaa kaaga sii daran haddiis gabartaasee soo dirta mar kale waan jijibihaa haddan inta kagaleena sanka day soo yeele fiiriya saaxiib baa la soo socdaa hay qoftan maxay naga soo doonta haddana waa yaabe ma aqaano qoftan maxaa uga baqaysaa adig war aniga qoftan ka baqaayaan ku dhahay ee hadday nala joogta hadday naga maqanta labadaba dhibaato ma naga mar mar dhibaatadu inay haystaa hay babiina inaan kula hadlayaan u baahanahay ma aniga ani ma ila hadlaysaa haa adiga oo ninkii waalnaa ma ku soo anfici waay saa darteed ma aniga igu maadda ii sheeg bal labalabada iga dhaafee 2 daqiiqo aan kugula hadla may siin kartaa okay xagana gey عيارته كان بي ويا مليح كان بينا قد عيارته قال أذيك مسكحة ما الله هذا إيش أكبر سوق بالعكوي بعد هرت وحارة أسك سبع سنة لحبك أنا وادرام كلا نبكي أذيك كويس لكن نبكي أجو حلو بهاي إن أتحل وهلكرتيد ما الله بهنا قفتان إن أدبس عطه في المقال كذا كاشي أرمي ما يروى إن كلا هذا لولي بسجوني ويه وحير عليه دول قاطع لعبكي وادي بياه دي وين حاسة بابينا أيان أرمها جنكا كورستي أرمي هذا نوحو كوجي هاي مالها وركسوا بنتي بنتو نقطة بين وشيء جرى لكن مركان بين ما شيء حقيقة أيان إندي سكارك كرنتو شيء كم بنت شيء ما كان سوى كوجانا مركاني ما أنت أيان جامعة تجوحنا سوق هذا قبل صاحبة ده وشروتي لها إنا يجرت قبل أيان أوتجينا وحول بنا إذا نوشيء دونتا هاول الماشي وان جوجا قال كلام بركيسي إيش شيء لحمية ها هواي هاي وان أركب ما سنت soo socda aniga dhowr jeer ayadina arkeen labadiina waxaan isku daynaa in la hadlo laakiin ima suurto gelin walaashay ganka soo saaxiib ma tiinade haa isla shalaba hal galaas ayaan wada fadhin labadeena waa maqashaana marqaati meel erka mareedna gabadhan kulajka dhiga jirtay waayahay meeshay aad moogtahay gangaa
ma sheegi karo balse waxaan la socdaa shalay dhan inay si saa'ida u murugaysneed laakiin maxay la murugsaneed waxaa jira hal wiil isku galaas aan nahay magaciisana waxaa la dhahaa mayo आजा तुझ पे मैं रख दूं चांद को इस तरह पालूं तेरे आसमान को बादलों समय बन के हर जगह तुझसे ही मिलके बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं मैं तुम हंसो तो जान मुझको क्यों खुशी मिलती है तुम जो रूठो यार मेरी आंखें भी रोती है बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं saaxiibi aniga ninkaas waan kaa waanina waa turufatoornimo kuma ekaysana shabeelnaagoodna wuu yahay iska dhaaf si ahaanbo waan kaaga digay kala adima waxaa rabtaa aniga welweli cabsiinaya ugu abuurta ninkaas waa ku kalsoona waana ku qanacsanahay intaas iigu ekee anigaa raalli ka ah mana u malaynaya waxyaabaha aad ka sheegays inuu ku dhaqmaayo बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं yaa waaya gabadha in aab gangaal dhaha adiga soo lama socotid doorashada in ay soo dhowdahay gabar iyo waxaan loo joogin leh maxaad ugu daba wareegtaa sumcaddayda maad rabtaa inaad baabiisid adiga iska dhaaf waxaan oo kale yaan kugu arkin mar dambe laag aab gabadh waa gabar wanaagsan runtii aniga wanaaggeeda iyo xumaanteeda shaqo kuma lihi gabar haddii aad rabtid gabar leebalkaada waa inaad raadsataa maahinee waxaanoo kale ha la soconin mar dambena ma kugu arki karo gabadhaas adigoo daba jooga sideeda bannaanba waa inaad ka hartaa aab waa ku baryaa wax badan oo uga diga waana u sheegay ninkaas inay ka harto balse gankaa way ku madax adeegto way la socotay abi kala adiga maxaa kaa qaldan muwaalan tahay gacalis ha ka baqin mootada inay ku dashay lagama yaabaan ku dhahay dabax mootada soo kor xogaa aan soo dalxiisnay maxaa sugaysaa maya aniga hadda xiise ayaan leeyahay waa ka xumaa meel dheer maaha kolajka hareerihiisaan kusoo wareegaynaa iyo haye dekay maxaa sugaya saaxiibay xiisadaadina aawa intee ku ogta adiga leeha ka daayan orod meelo aad u badan ayay ku kulmi jireen balse meelaha ay ku kulmi jireen waxaa ka mid ahaa galaaska iyo maqaayadda sidoo kale adeerka gurigiisa ayay ku kulmi jireen laakiin maalin waxaa dhacday maxaa dhacay maalinkaas maxaa xigo shuruutii hadal gangaa shaaxa uu kaa qabo maxaad u cabilaada murugna way kaa muuqata sidee waxu jiraan saaxiibe waay dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa dhacday maxay tahay maad ii sheegtid aniga war ayaan leeyahay uran leeyaha
ii dhaaro ur ma leedahay haa dhowr jeera isbaar jawaabtan isku mid ayay noqotay kaashi naftaada xakamee walaashii waa ku kalsoona waxaanu dhan inaan samaynan ogeyn aniga maxay u samaysay laakiin balse ninkaas ma dhaafay waan dilaya shuruutii kadib maxaa dhacay ma aqaano wixii dhacay kadib maalintaas ayaanu iskeen dambaysa aniga ganga hadda anigu waan tahay miska kay fasixi kartaana iska baxe waaya iska bax haddii aan kuu baahna anigaa ku soo wacaayo wacad waxaan ku maray hadday ganga wax gaaraan dadkan waa si dhibayaan sukuurid maxaa la yidhahdaa adiga sidee wax kaa yihiin ma jinniyaad qabtaa guryaadeen maa iska garaacee waardiyaha sharafta la adiga miya waardiya maya aniga gurigaan baan leeyahay dharkaan fashion ayaan wataa famil gurigaan degnaa familka gurigaan degnaa kuwa kundheelo way aadeen anigana ma aanan jooga oday madax beenha ii sheegaya runtii ii sheeg haddii kale madaxan ku qarxiya waa ujeedaa guriga inaan laha kelin dhar waardiye watee intee aadeen waa baxeen dadka gurigaan jooga meelay aadeen aniga ilaahay hadda ma aqaan idinka xaad rabtiin oo halkaan u timideen taasaan bala yaabanay xaad rabtiin كاشي 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 ما حسميني كاشي soo ma fiicnid waan fiican adiga sideeta aniga waan fiicanahay dadkaas ma aqaaniye ahaayeen ninka xaggiisa ayay ka socdeen aan malaynaa marle gacanta ay soo galaan anaa ka sheegsiinaya balan iyo xdi waayaan ku dhahay ii dhaaf abbaarux ma soo ogaatid haddii yaqaano gabadhana meesha ay ku sugantaa waan ka walwalaayaa hooyaaba murugta iska dhaafa gabadha walaashin guriga way imaanaysaa anaana soo raadinaya meel walbana tegaaya mar dhowna oo kabgashana रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे धुंधली धुंधली राहें हैं धुंधली हर मंजिल तुझे ढूंढ रहा दिल 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 mahadsanid yah run ahaantii shuruutii shala markay ku aragtay adigoo xanaaqsan arrin ayay kaa qarisay wayna kuu sheegi weysay sidee maxaa walahaas xaqiiqdaa waxay tahay
abimaayo aabbihiisa raalli kama uusan ahayn xiriirka ka dhexeeya labadooda waxayna go'aansadeen maxkamadda inay isku guursadaan labadooda wakaale guurka ma u socon galeen may macnaa bere aniga waxaan u socdaa lagnaw shaqo muhiima ayaa ii soo baxday waxaan kaaga baahanaa maxkamadda inaad tagto oo soo ogaato siday u dhaceen waxaa laga yaabaa markaas kadib inaan ogaano gangaa meeshay ku sugan tahay arrimaha guurka rabaa inaan wax ka ogaado ma ka ogaan karaa okaada waryaa hoo iga qabal feelkaaga adina okay mudane arrimaha guurka xoogaa say kii qasiini wax ma iiga sheegi kartaa yacni saaxiibkayga qof weynaa buu eg tahe gabadha da'deeda ii sheeg bal 20 aa u go'da gabadha haa waana walaashay way maqantaha marka in halkan lagu guursaday in kale sheekadaas baa keenta soco waryaa soco meeshaan see tag maqalno walaashay gangaa muhiim ayaanu ah hooyana waa igu wareerisay way u baahan tahay haddii ay walaasha maqan tahay anima iga soo raadsanay waryaa iga tagaan ku dheh meeshaan isaga bax soco walaashay way maqan tahay darteedna qof waan u dili karaa intuu dhiiggayga qabooyaha waxaa ku wanaagsan feelka inaad ii baarto oo arrintan aad ii sheegto haddii kale waan ku gedinayaa xoog miyaa makuu sheegay meeshaan isaga tag soco abo magaceeda la ii sheeg bas gangaa jowtri okay yahay ahaa gangaa joodri somaha waa tana 5 maalin ka hor ayaa halkan timi si loo guursado laakiin nasiib xumo guurkii maba uusan dhicinba abooben badan arjog yaadi jinni maa qabtaa muglabaad maamahan timid xaggee soo socotaa ii sheeg see wax u jiraan wasiirkaan rabaa inaan la kulmo warniyow macquul maan aniga baxar hay gelin meeshaana waa laygu buro irsaaqadaan kala sidaa bariiskayga leeciidaa ku shubay armay sidaas yihiin wax baryaa yaa waay ninkan adigoo kuu yimid inuu kula kulmoo rabaa wiilkaada iyo gabadha walaashay waa isku kulleejubayn isjecelihin arrimoodaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo miiga ogolaanaysaa marka laakiin xaafadana baa laga yaqaana waa ninka haddii waa waalaya iskida adiga magacaa akaashii waaye dhegaysa kaashii wiilkayga aniga dabeecaddayda ayuu leeyahay ma fahanta gabdhaha masaakiimankee annaga jecel lama jelno gabdhaha masaakiinta aad sheegayso soo bila'aadan maaha yaa ka xaniba jaceylkana faqiir iyo taajir intaa malax la socotaa adiga guuxaada ka dheerayno ma wanaagsana ereygaas haweenka isticmaalaatan kale halkan aniga waxaan u imid inaan waxyar kaa dhadhaci inaan kula buuqamaa gabadha walaashay wiilkaada wuu mehersada xaggee joogtaa marka arrintaas ii sheeg walaashay xaggeen ka raadiyaa wiilkayga hadda mansuuri ayuu aaday markuu yimaado aniga ayaa waraysanaya kadib waa isbuuca waa igu dheeryaha ma sugi karo walaashay imbortonsiyaanu ah hooyadayaa u baahan waa ku barya reer adiga markaan waad ka badbadinaysaa xanaaqaygana waad keenaysaa walaashaa hadday iyada isla wareegta eedoo nin walba shukaasanaysa wiilkayga miyaad qoorta u gelinaysaa waad edab darantabeeska dheh waad ka badbadinaysaa markan waan ku dilayaa soo saacyaanwarnasiida waan kaa sii tagaya hadda waxaad ogaataa walaashay hadday wax gaaraan adii wiilkaada inaan idin dulmisana gacanteeda ay idinku gubo waa ballantaas dhaqaaji waryaa adna ruufyaanay sicir barataan xaguu nooga yimid ayaa banaya madax xanuun aan ka qaadnay maalmahana biilkiina aan lagu wareeriyay wax alaale waxaan sameynay khiyaab baan kana maxaa taleefanka dirsanaya asagana halo ha waa ku maqla waa kaashi wax ma ogaateen ha goobta nikaaxa waan tegay balse nikaaxi ma uusan dhicin abimaayo arrimihiisa waa inaan ogaanaa sida ugu dhaqsiyaa badan gurigiisaan tegey waxaan soo ogaaday aabiis nin xun inuu yahay runtii abimaayona waa maqan yahay safaruu ku maqan yahay weli muusan imaan waxaa laga yaabaa walaashaana inay asaga la joogto meeshaas waa inaan tagnaa okay war fiican
इतना भी ढील मत छोड़ कि मैं पूरी की पूरी बिगड़ जाऊं। तू आंख सेकता रह जाए, मैं किसी और के साथ उड़ जाऊं। सही है ना? बोलना। रात नशीली बात नशीली, आज तेरे साथ 2-4 कश ले ली। रात नशीली बात नशीली, आज तेरे साथ 2-4 कश ले ली। उड़ी उड़ी फिरती है बेबी क्लब में, फ्लोर पे गिरती है आके मेरे लब में। मैं हूँ पतंग तू है माझा 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 माझा। दम लगे इश्क दा ढूंढे राजा, दम लगे इश्क दा ढूंढे राजा। दम दम मार बेबी नशे का मजा ले, दुनिया की फिक्र तू धुएं में उड़ा दे। I know गलत है नशा लेकिन चढ़ने दे, थोड़ा मैं बिगड़ी थोड़ा और बिगड़ने दे। बाहों में ले लेके अकड़ मेरी झाड़ दी, खुद तो बिगड़ी थी मेरी दी आदत बिगाड़ दी। तू है पतंग मैं हूँ माझा 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 माझा। दम लेके इश्क दा ढूंढे राजा, दम लेके इश्क दा ढूंढे राजा। दम दम मार बेबी नशे का मजा ले, दुनिया की फिक्र तू धुएं में उड़ा दे। waan ku salaamay. waan kaa qaaday, maxaan kaa caawiyaa? run ahaantii saaxiibkayga oo lagu magacaabo abimaayo ayaa halkan imaaday. waxaan u baahanahay inaad ii sheegto qolka uu degan yahay. aan igraal noqo, anaga macaamiishiina warbixintooda ma dhiibi karno. laakiin aniga waxaan ahay qof saxafiyad ah, berina waa dhalashadiisa. waxaan u baahnaa lama filan inaan uga dhigay maashayga. oh lama filan may dhahday? haa okay waaya haddii sidaas tahay filkan kuu fiirina waxay rasugaa abimaayo bandhe soo maraadina sii sheeg. haa qofkaas hoteelkeena ayuu degan yahay, qolka nambarkiisa waxa waaye 605. sidoo kale qof dumar xataa way la socotaa. waad mahadsantahay. yaa imaaday siiqa wasta la soo fiirinaya. jawi degan awo ganga gangaade kale war maxaa tahay sheeg eersumada ku dhaqmaysa waa maxay away ganga waray ganga aqoon uma lihi qolkan iga baxan ku dhahay bemba sheegaysa wariya sheeg ganga war qaldan qolkan iga baxan ku dhahay maxaa tahay adiga maxaa meesha ka dhacay ولا سكنجا ولا شيء قوم لي هي كده كيسك ولا شيء قيام السكام يلي كاسي ما بيحسن سيدا كالي كاسي وكادي والجتسي كاسي رونت تشيك كاسي ستاك ايسك ولا سكنجا ولا شيء قوم لي امس صلح قفي ولا شيء كما كنت ودريمي كرتا انو وحبا markaas xiriirneen walaasha ii sheeg shanayaan ku tirnaa
haddaad sheegi weyso walaashaada aqoon umalihi waa ku baryaa iska kaysiida kow kaashi labo walaashaada ma kasaaye kaashi sida waa ku baryaa diline shan استوديو فامبوش مقدشو kaashi xilligan waxaa macquula booliska magaaladan inayna soo dabagalayaan waa runta waad nasaxadda laakiin aniga cid kama cabsanayo wax saxan ayaan sameeyey hadda gurigan taga hooyayaa baan u sheegaa wax walbo igu dhacana diyaar ayaan u ahay markaas ciqaab walbana ha lay marsiiyo laakiin wax qaldan marnaba ma aanan samayn halo waan ku maqlaa haa isbatoore waayahay waan ku fahmay yaa waay booliska banaaris ayaa teleefon ii soo diray walaasha arrimaheeda inay wax ka ogaadeen aan u malaynaa saldhiga ayuu noogu yeedhay wejigeeda lama aqoonsanayo wuu burburay kaashi saakadan waa saakadan hadiyad ahaanta ugu keenay abay dharkan caadi maaya magaalada waxaan kaa rabaa inaad shididan ku dhaha maanta kala kici hulciyaan ku dhaha xagga tag dharka soo xira कभी कहीं थम जाए सांसों का सिलसिला कभी नहीं टूटेगा यादों का काफिला जिंदगी छोड़ दी तूने किस राह में क्या से क्या हो गए हम तेरी चाह में जीना है मुश्किल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल दो किनारों से हम थे मिलके भी ना मिले दरमिया थे दिलों के मीलों के फासले टूट कर रह गए हम चार दीवारों में दफन है जिंदगी जैसे मज़ारों में कुछ नहीं हासिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा sababta abamiyuu u disha maxay tahay war adiga ayaan kula hadlaa sababta abamiyuu u disha maxay tahayna ii sheeg walaashayow jecel beena ninkaas la sameeyey kadibna waa uga baxay waxaa suuragalay inuu gacantiisa ku dilay walaasha haddii lagu booday dadka maad dilaysaa adiga kan kale magaaladan adiga maa booliska ah waxaa rabtuna ma iska samaysanaysaa qofka aragtana ma iska dilaysaana walaashay darteed wax walbaan u samayn karaa oskod waxaad iladaa miyaa walaashay aniga qof walba waanu dili karaa war walaashaa darteed haddaad dadka aad u layso maxaad faa'iidaysaa ii sheeg hadda ninka waa aad dishay
walaashaana waa ay kaa dhimatay maxaa kuu soo laabtay marka waa faa'iida waxbana cimrigaaga inta ka dhiman hadda xabsi ayaad ku dhammaysanaysaa cid kaa soo saari kartana ma jirto meeshaasna waa meel aad iyo aad u adag waryahay dhegayso ninkan oobi ayaa ka qoraysaa haddii kirif yar aad ka dareentidna lafaha ayaad ka jibinaysaa amarkaasna aniga ayaa ku siiyey waxbaha ka baqin adiga isii koofita qoftaa darteeda intaasoo san u soo dadaalaysay hadda dunidan kuma noola arrintaanna booliska iyo maxkamadda ayay u gudbaysaa booliskii maxkamadda horta aniga walaashee ma noola anigana maanta waxaa noqday gacan ku dhiig leh cimrigayga inta ka dhiman xabsi ayaan ku dhammaysanayaa marka wakhtigiinan kaa lumay maaha waxaa ilaha boon inaad iska guursato kaashii niyadda ha iska jebinin waxaan u malaynayaa arrin inaan ilownay arrin maxay tahay waxay ilowday abimaayo maalmahan oo dhan gobolka masuuriye ayuu joogay kadibna waxaa noola soo sheegay walaasha meedkeeda banaaris inuu yaalo laakiin micnaha wuxuu yahay qof kale inuu dilo gabadhan weliba magaaladan ayuu nala joogaa qofkaas yuu yahay qofkaas aniga ayaa qof kale u dira waana la soo ogaanayaa qofkuu yahay iisoo ogow balan waxaa igu ah inaan dunida ku dhaafin ninkaas waan dilayaa gebigiisba waa la soo ogaanayaa laakiin hal mid ka taxadir adiga looma baahna inaad xabsi gasho sababtoo ah gangaa cadaalad ma helaysa haddii aad gasho waa inaad diiddaa dembigan inaad gashay waanba caddaystay seen u diidaa mar labaad ayaad caddayn kartaa inaadan dembigan wax lagu ku lahayn maruu xilliga booqashada oo dhammaaday wakhtigeeda waa bixi kartaa haddana aniga waxaan ku sheegayaa kiish aan gacanta ku dhigay ma laga yaabo inaan ka laabto kiiskan anigaa soo afjaraay lacagta oo keliya adiga ii badi kaashii in loo dhammeeya ayaan rabaa meeqaa kugu filan ii sheeg kaashii in loo dhammeeya wax weyn maaha adiga waxaa lagaa rabaa oo keliya kiiska inaad dhankayga u soo wareejiso soo tartiibka fariista dacwada way furan tahay hawshiinana waa bilaabi kartiin mudane xeer ilaaliya haye ninkan aad u jeeddo waxaa lagu soo eedeeyey dil uu asiga geystay warkaale adiga maxay sheegaysaa dil uu geystaa lagu soo eedeeyey hortii dhegayso adiga waxaad tahay abukaataha magaaladan uga caansan mahadsanida ha kuu dambaysa hadalkayga dhegayso horta maxkamadda waa inaad ilaalisaa sharafteeda sababtoo ah baan ayaa af kugu jiro waxaad doontaa ayaad iska sheegaysaa aniga baanka waa cunaa laakiin sidaadoo kale miye waxaan ka baqaa inaan adiga kugu daysadon maya bis haddaad la xalina kankeen baraaw waxba ha ka welwelin baandhe mudan xeer ilaali xamaasad oo keliya i qaade hawshaada wado ee bilaaw aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudan xeer ilaaliya ninkan lagu magacaabo kaashi maalin cad ayuu wuxuu hotelka ugu tagay ninka aan aniga wakiilku u ahay aan u doodayo mudane baandhey kadibna wiilkiisa ayuu kow ka siiyey weliba arrintaas keligiisa muusan ahna waxaa garab ku siisay marwa deefina kanna been ayuu sheegayaa mudane garsoore ninkan waxu daldalayan ilaa iyo hadda waa been ninka la yidhahdo abamanyu qalad oo asiga sameeye darteed ayuu isku dilay ninkaanna waxa uu dilay haba yaraatee ma jirto waa la nabsanayaa abamanyuna sida sharaftiisa iyo sumcadiisa u badbaadiyey darteed ayuu dabaq iskaga tuuray asiga ayaana isdilay ninkaas xaqiiqada jirtana waa saas mudane xeer ilaali arrintan waxaan rabaa bur iyo biyo inaan u kala saaro haddii aad ii oggolaanaysana ninkan ayaan jeclaan lahaa laba kelmadood inaan weyddiiyo si aan xaqiiqda bannaanka u keeno intaasoo keliya ii oggolow waad weyddiin kartaa mudane kaashi waxaan ku weydiinayaa walaashaada qofay la baxsatay ama ay howlo kala dhexeeyeen oo waxun ay samaynayeen wakiil maxaad u qaylinaysaa aniga
su'aal ayaan ku weydiiyey waa inaad iga jawaabtaa walaashaada qof ay bannaanka la wareegaysa miyaa jira raadinteeda bannaanka waaday markaas soo waasi kadibna abumanyu ayaad u dhammaysay soo maaha dad ayaan ka qabaa mudana garsoore ninkan waxa uu sameeyahay waa dhaqan xumo ninkan ayuu rabaa maskaxdiisa hadba meel inuu wakiil isdaji adiga ninkaan ha dhammaysto markaas kadib su'aashaad rabtid waa weydin kartaa okay aadaa u mahadsan tahay mudane xeer ilaali adiga waxaan ku weydiinayaa jakir bande gurigiisa ayaa tagtay soo maaha kadibna waad u soo hanjabtay isaga oo keliya maaha asaga iyo wiilkiisaba inaad dili doonto aniga su'aal ayaan ku weydiiyey iiga jawaab adigana mudana waxaan rabaa bande laba kalmadood inaan weydiiyo haddii aad ii oggolaanayso waa waraysan kartaa mudane bandey waxaan ku weydiinayaa kaashi gurigaaga ma kuuga imaaday haa guriguu igu yimi kadib muxuu ku weydiiyey wuu ii caga jugleeyey wuxuuna dhahay walaashay gangaa haddii aan waayo adiga iyo wiilkaada abmiyu waa idiin dhammaynaya mudane xeer ilaaliya waa maqasha ayaan u malaynayaa ninkan wuxuu dhahay walaasheeda haddii la waayo adiga iyo wiilkaagaba waan idin dhammaynayaa gangaa waa la waaye kadib ninkan wuxuu sameeyey hoteelka ayuu abamayuu ugu tagay wuu dilay kadibna dabaq ayuu ka soo tuuray hadday macquul tahay bal wanji ayaa rabaa su'aalo yar inaan weydiiyo waa weydiin kartaa mahadsanid bal waan hadalkayga si fiican u dhegeyso ninkan waxa uu sameeyey gar ayuu ku lahaa maxaa yeelay wiilkaaga wuxuu ku dhaqmay wax aan lagu dhaqmin walaashiis ayuu si xun u galay nolosheeda iyo mustaqbalkeeda intaba waa uu ku cayaaray sidaas darteedna inuu wiilkaaga dilo waxaa sababtay mustaqbalka walaashiis ayuu ku cayaaray hadalka aad ku hadlaysid ka fiirsa haddii kale warniyow inaad isdejiso ayaa ku wanaagsan xanaaqana ma kuu fiicna hadda wiilkaaga oo keliya ayaa dhintay xaqiiqadan aniga haddii aan soo saaro waxaa ballan igu adiga iyo familkaaga dhammaan inaad dacweeyo aniga aqoon ma iilid laakiin waxaa igu ballan inaan kawkaa siiyo igama badbaadaysid waan ku dilayaa ballan waaye midaas sharaftaada ilaalso maxkamadda sharaftaadana ilaali maxay dhahdana waa ku baryaa adigoo mahadsan waxay dhahda igu celi mudana garsoole marka ugu horrayso adiga iga raalli noqo waxyaabahan inaan sameeyo aniga ma jeclaysan laakiin waxaan rabay ninkan laba kelmad oo keliya inaan ka soo saarto waadna u jeeday laba kelmad iyo ka badan ayaan ka soo saartay ninkan markii aan su'aalo weydiiyey waa uu xanaaqay kalarkayga ayuu qabay wuxuuna yidhi adiga ayaan ku dilayaa weliba asigoo wasiira oo dadka xil u hay ayuu wuxuu leeyahay waan ku dilayaa waana ii caga jugleeyey bal ninkan haddii wiilkiisa uu gubtay ninkan kale walaashiis la dilay asigana siduu noqon karaa aniga waxaan rabay intaasoo keliya in aan idin dareensiiyo waana idin dareensiiyey mudan garsoore jaala garsoore haddii aad ii oggolaanayso askarigan ayaan waraysan lahaa waad waraysan kartaa kaashii afkiisa ka qirtay abumiyo inuu gacantiisa ku dilay waa in iska cadda dood ayaan ka qabaa mudana garsoole ninkan aad u jeedda waa askari saldhigga booliska markii la joogana wax walba wuu wadaa laakiin maxkamadda caddayn ayaa looga baahan yahay annaga caddeemo waa haynaa caddeemahaasoo dhanna maxkamadda ayaan hor keenaynaa jaala garsoore waxaan kaa codsanayaa ninkan kiiskiisa inna laga soo afjaro sidaa daraaddeed waxaan rabaa caddeemo kale inaan ku hor keeno ninkan kaashii lagu magacaabo 24 oktoobar hoteelkeena ayuu imaaday marwaasna way la socotay meeqa maalmood ayuu joogay hal saacadood loo joogay halkaas saacadoodna abamanyu waa la dilay garsoore intaasii qor mudan meesha waa joogi markhaatina waa ay ninkan lagu magacaabo kaashii waa isdaba orday abimayu naagtan markino usay la socotay waana celcelinaysi markay hoteelka ay joogay kan qolkaas gali kadibna ninka dabaqaasba ka gami ka warangay saas u dili ninkan inas dhintaan malayna garsoore waa run abimayu ninkan kaashii la dhahayo ayaa dilay weliba markuu dilayo wuxuu ku soo celcelinaya walaashay ganga aawe meel iigu sheeg abimayuna wuxuu lahaa aniga walaashaa ma aqaan weligayna ma arkin laakiin hadalkiisa wuu aamini waay ugu dambayntiina wuu dilay weliba isagoon wax dembiye geysan weydii ninkan sababta ninkaas masaakiinka uu dilay mudana mahendar waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo kaashii markuu kor karahay adiga halkay ku sugnayd ii sheeg receptionkaad joogta kaashii iyo abamayu markay isdagaalayeen labadoodana halkeed joogta adiga meeshaa ku sugnayd ii sheeg receptionkaad joogta mid kalaan rabaa inaan ku su'aalo kaashii markuu dabaqa ka tuura abamayu waxaan rabaa inaan ogaado meesha adiga aad ku sugnayd inteed joogtane receptionka isla markaasna joogta alloora saas deeta adiga waxaa tahay sixiroole maxaa yeelay receptionkaaga adoo joogto aa kor haddii laysku dilaayo wax walba lagu suubiyayo adiga aad ogaanaysaa soo maha su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo kaashii markuu dilaayo abamayu adiga
ما ujeedo oo waliba indhahaaga ku arkay ninka meesha markii istaagna aan arki Hey? wada dhiigas ay wajigiisna cabsiyanba ka dareemayba ani runtii waxaan ku dhawaaday inaan iska cabsaday waayahay marwadaasna marwadaan mayno meesha waa taagneed ninka celcelinaysi su'aal haddii aan ku weydiiyo marka ugu horreysay kaashi adiga aad arkaysay goormay ahayd aniga abimiyo qolkeena markuu soo galay ayaan arkay okay maxaa qabanaysa marka adiga aniga waan qabaysanaya markaas waa qubaysanaysay okay abamayuuna muxuu qabanayaa ii sheeg wuu qabaysanaya isna wuu qubaysanaya alloor hoteelka halkii qolba laba musqul ayuu leeyahay soo ma hal musqul uu leeyahay oo labadiina hal musqul maad ku wada qubaysanayseena been la waa biyaha dhaqaalaysanaysen soo ma dood ayaan ka qabaa jaala garsoore ninkan su'aalaha uu gabadha weydiinayo sharaf dhacayay maxkamadda u keenaysaa ma loo baana su'aalaha noocaas oo mishraa isdeji adiga isdeji maxaa la dhahaa qofta waa dumar su'aalaha uu weydiinayna fiir meeshu waa maxkamad ma loo baana su'aalaha adiga ha isku daya aniga inay matasho abukaate hawshaada wado mahadsanid hal su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo markii adiga musqusha aad ku jirtay ninkii la kaashii ma arkin soo maahan sidaan filaayo markaad musqusha ka soo baxday kadib ayaad kaashii aragtay oo weliba meeshoo jooga aad ugu tagtay hal mid ayaan rabaa inaan ku su'aalo markii aad musqusha ka soo baxaysa dhar ayaad wadato soo maahan adiga shukumaan awti shukumaan iga dheh adigoo shukumaan xiran ma soo baxdo oo dabaq kor aad kortana maya way haddii sidaas ay tahay adiga dabaq markaa koraysay dhar noocee aa wadatay ii sheegna sootaano gudaha dhar kale ma kugu jirayna su'aalaha noocan oo kale oo maxkamadda gabar lagu weydiinaya waa adiga abukaad su'aalaha aad weydiinaysa gabadha waa maxay mudane su'aalahan aan qofkan weydiinayo muhiim ayay yihiin marka haddii ay macquul tahay su'aalahayga aan sii wato aniga hay waayahay wadahee naga wad sootaanada aa xirneed maxaa kaaga hooseeya ii sheeg dhar kalaan watayno dhar kalaad wadatay yacni hadalkaaga waxaa ula jeedaa musqusha shukumaan adoo wadata ayaad ka soo baxday kadibna shukumaankii ayaad ka siibtay sootaano ayaad gashatay dhar kale ayaad hoos ka gashatay waxyaabahaasoo intaad samaysana kaashi kor ayuu kugu sugaayay adigana waa soo baxday kor ayaa timid waxaadna aragtay ninkaas oo dabaqa laga tuuraayo weliba indhahaagaad ku aragtay waa soo baxday ninkaanaad u timid markhaati aniga ayaa arrintan ka ayaa tiri dembigana kaashi ayaad rabtaa inaad dusha ka saarto deganaanka ilaaliya aamusa hala aamuso mudana garsoore waxaa la rabaa maxkamadda in maskaxda laga labalabeeyo ninkan kaashi ah dembiga lagu soo ogo ama markhaatiyaalka iyo caddeemanka la keensaday waa wax kama jiraan wax ka jirna habeeraatee ma jiraan abukaata mishraa wax kale miyaad rabtaa inaad sheegto hoteelka highland kaamira siisiida ku xiran waxa ay duubtay ayaan rabaa halkan inaan keeno mudana garsoore waad keeni kartaa garsoore muuqaalka waxaa inooga muuqda kaashi oo bursanaya abimanyu bursasho oo keliya ugumuusan akeenin wuu garaacay wuxuu doonuu ku sameeyey dabaquu saaray kadibna meesha ayuu ka tuuray sidaas ayuuna ku dhintay abimanyu mudana garsoore waa run waxaana la tusay iyo fiideoga iyo caddeemaha intaba laakiin waxa la sheegaayo iyo dilka kaashi oo geystay wax iska galay habeeraatee ma jiraan waana been abuur hadalkaas aamusa mid kale ayaan rabaa inaadin su'aal mar garsoore kaashi oo ninka la yidhaahdo abamanyu dabaq ka soo tuuraya fiideogan ma lagu arkay oo ma looga jeedaane hadalka hanoo laalaabin wax aad hayso noo soo bandhig mudan xeerale dabaqa xilligaas waxaa fuulay deefinaa beriyaa kaashi saddexdooda meeshaas ayay ku sugnaayeen marka sidee lagu xaqiijin karaa kaashi keligiis in uu ninka la yidhahdo abamanyu dilay meesha ilaa saddex ayaa joogtay waxaa kaloo xaqiiqo ah kaashi oo abamanyu daba cararaayo inaan kaamirada annaga aan ka aragnay waana runtaas laakiin annaga muuqaalkaasi kama aan arag kaashi asagoo abamanyu dabaqa ka soo tuuraayo tan kale annaga kaashi ma ku tilmaami karna dila maxaa yeelay dhammaanteen shaki oo keliya ayaan ka qaadnay mudana garsoore ninka la yidhahdo abamanyu inuu dhintay waa xaqiiq laakiin ninka kaashiya inuu dilay xaqiiq maahin dhammaan markhaati iyo caddaymihii markii ay dhegaysatay maxkamaddu waxay go'aan ku gaartay 2 maalmood kadib in laysku soo laabto
dilaagii dilay wiilkayga ayaa kiiska noogu guulaysan raba adigana halkan ayaad baancunuhu la fadhisaa war sideed rabtaa maxaadse ii qaban rabtaa ii sheeg qorshahaadase muxuu yahay kiiskanna sideed ugu guulaysanaysaa adiga kiiskan maba loo baahnaba inaad isku sii wareeriso aniga waxaan ku tusayaa dadka maxkamadda joogoo dhan inaan marin habaabiyo oo maskaxdoodao dhan aan rogo wiilkayga ninka dilay waxaan rabaa asagana in la dilo taasoo keliya ayaan doonaa taas wax weyn maaha adiga lacag ayaad leedahay lacagtana awood ayay leedahay haddaba waa inaad tustaa dadka awoodda lacagta ay leedahay ciddaad doonta iibso wax le ee tusa adiga waa bilaaban kartaa mudane xeer ilaaliya kiiska haddii aan guda galo ninkan 2 maalin maxkamadda wuxuu ku wareerinayay kiiskan beenta ee aanan jirin oo wuxuu leeyahay walaashay ayaa la dilay qofkii walaashay dilay ayaan ka argutay anigana laakiin annaga waxaan samaynay baaritaan dheer xaafaddii u degnaayaan tagnay diriska ayaan soo waraysanay oo waxaan dhahnay ma jirtaa qoftaan la sheegayo balse waxaasoo dhan waa waxba kama jiraan diriskana waxay noo sheegeen qofta ninkan uu sheegay ee gangaa lagu magacaabo inaysan ahaanba qof jirta aamusa hala aamuso isdejiya kaale adiga maxaad ku hadlaysaane garsoore runta ayaan kuu sheegayaa ninkan gabadha uu sheegayo maba la dhalaninba gabar gangaala dhahana maba jirto gabadhan uu leeyahay waa aniga walaasheedana meesha maba joogto dood ayaan ka qabaa mudane garsoore ninkan arrimaha aan ku jirno iyo arrimaha hadda oo keen wax isla habeeraatee maahan garsoore aniga waxaan kuu hayaa markhaatiyaal kuu caddaynaya ninkan inaysan gabar la dhalan haddaad ii fasaxaysana maxkamadda ayaan soo saarayaa mudane garsoore ninkan hadda kor waa ii yimid si xunun ii garaacay aniga markuu i garaacayn wuxuu ilahaa walaasheed aaway waxa aan la yaabanaha waxay tahay gabar ma aysan la dhalanin muxuu ii garaacayay ninkan waxaan dhihi karaa runtii waa nin waalan mudane garsoore ninkan kaashi lagu magacaabo nin maskaxiisa ee fadhida ma aha waa nin isku dhexayaacsan mararka qaar keligiisa isla hadlaayo aniga xataa waa la yaabay mudane garsoore aniga waxaaba la yaabi markiin arkiba ninkan barkiin camalaas qabaano marka saas darteed xirsi xijaabaanba kasoo xirtino barkiinkiisa iyo bisaalimkiisa ma inay iga leexdaan garsoore gabar gangaal dhahay koleejkeena inay dhigatay iska daay weligeed xitaa codsi kama soo dhiiban balse wiilka abimayuul dhahay iskoolkeena muhiim ayuu ka ahaa been bay sheegayaan mudane garsoore arrintan waa arrin kulligood ay soo dhodhoobeen aniga ayaa markhaatiya caddayn halkan kugu keenayo waad soo saari kartaa garsoore kuwa aa ujeedid been looshin waa ku dheh war 5 kun haddii la siiyo nafsadooda way goynaan gabadhaas walaasheenna waa jirtaayaan ku dheh biyooraha walaaltinimada xataa anaa ii xirtay maxaa lisaga indha tiraayaa mudane garsoore waxaasoo dhan been waay ninkaasaana ka dambeeyey meesha fadhiyo beenloo waa isaa soo alifi sheekadaanoo dhan mudane garsoore mararka qaar gangaha anaga koolejka kii jirnay dadkaanoo dhanna beenay sheegooyiin aan ku dheh mudane garsoore anigii gangaa waxaan ahayn dad iskuuleeja weliba isku fasal ayaan ahayn saaxiibana waan ahayn balse wiil la dhahaayo abimayo ayay saaxiib la ahayd kadibna uur ayay qaaday arrintaasna aad iyo aad ayay ugula walasaneed aniga markay ii sheegtay kadib gabadha saaxiibtay maba arkin maalintaasna waxayd maalintii iigu dambaysay mudane garsoore aniga xataa waan hubaa gabar gangaal laho inay jirto haddii aan ka soo qaadno gabadhaas inaysan jirinba sababta meedkeeda loo hela maxay tahay ilaan qof aan jirin meedkiisa lama heli karo mudane garsoore maxkamadda waxaan ka codsanayaa kiiska mudane abimanyu in aanan laga helin oo weliba la sii dabagalo taas ayaan maxkamadda ka mudane garsoore annagu kiiska kama leexleexanayno caddeemahan aan hayno waxaan rabnaa maxkamadda dembiilaha qodobadiisa inay ku qaaddo mudane mushraa haddii aysan gangaa jirin meed kala helayaa waaye marwada hadalkeedana waa sax xeer ilaaliye si aan arrintan kugu xaqiijiyo haddii aad ii oggolaanayso askarigan waxaan jeclaa 2 kelmadood inaan weydiiyo isbatoore waxaan ku weydiinayaa
gabadha aad hesheen meedkeeda sideed ku ogaateen inay gabadhaas gangaa tahay meedkaas waxaa aqoonsaday kaashii iyo deefina sidee marka meedkaan arkayna ruuxantii wejigeeda waan aqoonsan weyn laakiin waxay noo sheegeen dharka ayaday xirad inay aqoonsadeen garsoore taas meel iigu qor adiga waad iska bixi kartaa waa mahadsantahay mudana garsoore haddii aad ii oggolaanayso deefina ayaan jeclaa laba kalmadood inaan weydiiyo waa weydii kartaa deefina waxaan rabaa inaan ku weydiiyo meedka la helay inuu gangaa yahay sida aad ku aqoonsatay run ahaantii dharka ay xirneed gangaa aniga ayaa hadiid ahaan u siiyey dharka ay xirneed adiga ayaa hadiid ahaan u siiyey soo maaha garsoore meeshaygu hay anigana hadiyad kale ayaan ku hayayaa ges ila fiiri meeshaan deefina adiga ayaan kuu soo jeestay dharkan soo maaha dharka aad gangaa hadiid ahaanta u keentay mudane xeer ilaali dharkan suuqyada ayuu yaallaa 500 rubis ayaa la siiyaa 300 in ka badanna way qaateenoo magaalada ayuu ku jiraa hadda deefina adiga waxaan ku weydiinaa sida aad ku aqoonsatay meedka gangaa inay ayada tahay iyo in kale ilaan dharka wax ma caddayn kara oo keliya been ayay waddaa deefina been kelmad runa ilaa iyo hadda maysan sheegin maxkamadda been ma rabto ee waxay u baahan tahay caddayn saxa in la hor keeno mudan garsoore aniga waanu waa dharkaas hadiid ahaan inaan ugu keenay horta dhar way isku ekaan karaan balse dadka bini'aadanka inay isku ekaadaan lagama yaabo anigana marar badan ayaan la kulma gangaa si fiican ayaan u aqaana mana laga yaabo qof kale inaan ku qaldo mudane garsoore maxkamadda waxaa looga bayaa gangaa inay imaato oo wax walboo caddeena ay noo kala sheegto aamusa kaale adiga wixii rabti maaska sheegay mudane xeer ilaaliya aniga ilaa iyo 3 ayaan tirinayaa gangaana albaabkaas ayay ka soo galaysaa ayadoo socoto caddeynta wadda wax walbana ayadaa noo caddaynaysaa 1 2 saddex awkaata mishraa sixirkii maad rabta inaad ku keenta gangaa sixirkaada uu burburay maya wax sixir la dhaho ma jiraan ee aniga ayaaba arrintan ugu talagalay sababtuna wax kale maaha adiga kaashii iyo gabadhan iyo inta maxkamadda joogtoo dhan waxaad wada sugayseen inay albaabkan ka soo gasho gangaa soo maaha ee adiga lamandhihino way ka soo galay waan ku dhahay aniga laakiin gangaa meeshaa ma imaanayso sababta aan ku dhahayna wax kale ma aha meedka la haayo inay gangaa tahay cid og haba yaraatee ma jirto kulligiinna hadda waxaad wada sugayseen gangaa inay albaabkaas ka soo gasho mana aysan ka soo galin sababtoo ah ninkan iyo gabadhan qofta ay sheegayaan qof jirta ma aha marka meedka la helay sidee lagu caddayn karaa inay gangaa tahay markii horeba shakhsi gangaala loo adduunkaa muusan saarneen garsoore ninkan sheekadiisu way dheer tahay waa waali fog maxkamaddu maahan inaad nagu sii daalisaan wakhti yuusan noogu lumin ninkan hala xukumo adiga ma amarna siinaya annaga ilaa iyo hadda caddaymo nagu filan ma hayno waxaan go'aan gaari karnaa kaashii hooyadiisa aabbihiisa markii halkaan la keeno markaas ayay wax walba caddaa karaan inta ka horayso dib ayaan iskugu soo laabanayna kaashi dadka maskaxda ayay kaa qasayaan waxayna rabaan ciqaabta ugu adag inay ku marsiiyaan dadkaas waxay doonaan ha sameeyaan waxay rabaan ha iska yidhaahdaan laakiin waxaan go'aan ku gaar aniga gabadha walaashay dadka dilay inaan soo saar har iyo habeenna waa u taagana taas adiga ha ii baqin kaashi hadalkayga si fiican u dhegayso wixii dooda aniga ayaa kuu jooga laakiin adiga waxaan kaa doonayaa buuq maxkamadda inaadan ku samaynin intaasoo keliya aan kaa rabaa abukaata mishraa aniga waxaan idiin diray waalidiinta kaashii in aad keentaan kadib ayaan go'aan gaari karna mudane jidka ayay ku soo jiraan aamusa maxaa dhacay meeshaan waa maxkamad annaga miyaad wax naga qarinaysaan garsoore kaashi gurigiisa ayaan tagay hooyadiis iyo aabbihiis guriga ma joogaan mana aqaano meelay aadeen
waa yaabanaha ilaa iyo hadda mudane garsoore waad u jeeddaan ninkan waxaa la soo dhahay waalidiintiisa waa la la'aya waxaasoo dhanna waxaa ka dambeeyo mudane balwaan waxaana loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh sharciga in la hor keeno maxkamaddana waxaan ka codsanayaa ninkan inay xabsiga dhex dhigto maxaa kugu dhacayne see aan garsoore absolutely iga raalli noqo midaanaan la yaabanayo oo waxaa la dhahay guriga waalidiinta maba joogaan way baxeen miya waalidii hore waali kalaa soo dhaaftay waa beyntis ninkan haddii ay dhacdo qoyskayga in wax yaroo dhibaato ay soo karto waxa barana bannaani suran inaysan ciidan ku noolaan kaashi isdeji go'aanka annaga ayaa iska leh garsoore halkii markhaati ugu muhiimsanaa ayaan rabaa inaan hortaada keeno haddii aad ii ogolaanayso waad keeni kartaa ninkan waa baqdeerkeeye fuul meesha magacaaga ii sheeg aniga magacayga miyaa rabtaa jumaana ayaa la yidhaahdaa ninkan akaashii aabbihiisna saaxiibbo qadiim ayaan ahayn siniin miniin ayaan isnaqaanin saniin maniin ma idhahde saniin maniin maxaad ula jeedaa ii sheeg bal saniin miniin waxaan ula jeedaa ninkan aabbihiis mila noobajanta taranta duwa ayuu geeriyooday maat waa dhintay adeer jumaana maxay tahay beedinta laga sidee wax u jiraana horta run ahaantii ninkan aabbihiis saaxiibba ayaan ahayn dad derisana waan ahayn sanadku markuu ahaa 1932 ayuu aabbihiis geeriyooday aad iyo aad ayaan uga xumay wiilkay ganga soo kacna isaaqow kaana ganga isoo kaartii dhaqsa geerida aabbihii dabadii markaan guriga ku soo laabanay waxaan u nimid akaashii oo jimbaarta aabbihi ku dulmeeraysanaya annagana uma aanan sheegi karin geerida aabbihi ku timid waana aan ka qarin adeerkay jumaana been ayuu sheegaya mudane caddeemo been ayaan bartaan la isugu keenay abukaate qaylada waa inaad joojisaa go'aanka maxkamadda annaga ayaa gaarayno middeeda kale kaashii caafimaadkiisa waa laga shakiya waa in takhtar loo diraa kadib ayaan go'aan gaari karnaa inta ka horaysa maxkamadda waynoo xihan tahay waadna iska bixi kartiin nabadii welideeda inaad barta halkaa u timid miya may uma imaanin inaad caafimaad qabto inaad caddeey ayaan meeshan u imid adduunkan cid aan ka aaminaya ma jirto waa runtaa cid ku aaminaysa ma leh aniga ayaa laakiin kugu kalsoon waddo kaloo adiga kuu bannaan haba yaraatee ma jirto runtan kuu sheega aniga ma waalni dadkan waxay rabaan inay intii walaan misana caddeyn beenaya iga sameeyaan intaba waan la socdaa waana ka warqabaa wax walba su'aalo ayaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalahaas haddaad iga jawaabtana wax walba way iska caddaan doonaan bannaanka ayayna imaanayaan ee adiga isku day su'aal walbaan ku weydiisay sax ama bakshish lagu soo siiyey xaashaa lillah aniga bakshish leema siinin innin shaqadiisa wata ayaan ahay shaqada ma bilownaa marka oo ma guda galnaa hawsha dadta hore ninkan markii aad sheekaysateen maxaa kaaga soo baxay run ahaantii markii koowaad ee aan ninkan la kulmay waraysigana aan ka qaaday arrin la yaab leh ayaan ninkan ku arkay kadibna baaritaan dheeri ayaan sameeyey marka baaritaankaas natiijadii ka soo baxday ayaan rabaa inaan kula wadaago nala wadaag mii bannaan tahay su-aasha koowaad aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay guriga aad degan tahay ee adiga ku nooshahay cuntada ayaa kugu kariya inaan ogaada ayaan rabaa ana ku karsada maxaa dhacay sabab ee dadka kale kariskooda kuma kalsooni gacantaydan ku kalsoona gabadha walaashahay adiga kula degan cuntada miyaysan adiga kuu karinna maxaa dhacay kulajka dhigata raashin karisna fursad uma hayso okay ma xuma aabbaha muxuu qabtaana asaga qayluu qabtaa maalin kastaana ugu qayliyaa dhimalaha kugu qayliyo waa nin weyn oo aabbaha mas-uula wax camala miyuusan qabaninna maxay tahay sababta aabbay wax sooma baran haddana da'a soo wajahday xaguu ka shaqaynaa marka yaase shaqada siinaya okay mid kale ayaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga walaasha gangaa xiriirka idinka dhexeeya waa noocee xiriir wacan ayuu ahaa balse maalmihii dambe walaashay xoogaa isbedel tartiib bas isdeji marka ugu horreysa su'aali baan rabaa inaan ku weydiiyo adiga walaasha xariga walaaltinimo ma kuu xiri jirtayna
haa maalmihii hore way ii xiri jirtay maalmihii dambe laakiin anaa iska joojiyey sabab maran ka xanaaqi go'aanna waxaan ku gaaray fiyooraha walaaltinimo marnaba inaysan ii xirin ilaan uqdada hore igu taagneed ma go'aankaygina burburiyeen waan diidana si fiican aan kuu fahmay in mararka qaar shaqada ayaad ka timaadaa guriga markii aad timaado yaa waayo qofka adiga albaabka waxaas ma su'aala marka guriga waa la dhooban yahay albaabka furan yaa xira marka okay ka gudub midaas mid kale raba inaan ku weydiiyo dabcan adigoo daalan ayaa shaqada ka soo baxdaa guriga ayaa timaadaa walaasha ama hooyada yuu yahay qofka adiga biyaha kuu keena markaas annaga hooyo iyo walaalaha ma dhibna moogtahay wax walba waa aan ognahay hadda way noo cad yihiin garsoore ninkan dadka uu ka sheekeynaya waa mala'awaal iyo khiyaali isagoo iska dhaadhiciya dadka uu ka hadlayo dunidan aan ku noolnahay maba ay ku noola oo waa dad waa hore geeriyooday aamusa dad uma joogo maxaad ka wadaa waanaa ku fahansiinaya garsoore waxaan ula jeedo ninkan markii aan su'aalo badan weydiiyey waxaa noo soo baxday waxyaabo badan oo annaga aan ku wareersanayn maskaxdiisa ayuu ninkan horta ka adeegtaa ismoodsiis is-aragsiis ayaa la dhahaa ninkan waxa uu inoo caddeeyey albaabka markuu soo galayo inuu albaabka furan yahay oo cidi aysan ka furin cuntada marka ay noqoto inuu isaga cunnada karsado biyaha inuu isaga soo qaato waxaasoo dhan isaga ayaa qabsada maskaxdiisa yaraantiisa ayay la qabsatay inay faamilkiisa la joogaan inay mar walba u muuqato la qabsiga uu arrintaasi la qabsaday waxa ay sababtay in wakhti kasta uu u maleeyo waalidiintiisa inay la joogaan kama dayaan wakhtiga laga lumin ninkan dhimirka ayuu laayahay marka xukunkiisa soo gabagabay adaa dhimirka lacag kula laaluush qaatana waa taawaya kaashi aamus dood ayaan ka qabaa mudane garsoore ninkan ditoornimadiisa ayaaba shaki igaga jira inuu ditoor faalsi yahay ayaaba laga yaabaabo maya raalli ah waa uu kaatay booskaada ku noqo adigana balwan naga fariiso wada adiga waa sii wada kartaa waad mahadsan tahay horta ninkan cudurka uu qabo haddii afafka qalaadaan ka soo bedelo oo af soomaali ka dhiga baranoya ayaa la yidhaahdaa waa waali familkiisa muuqaalka uu ka arkayo amaba dadka uu jecel yahay haddii dhibaato loo geysto cid allaali cidda oga shakiyo kow ayuu ka siinayaa oo dunida ayuu ka masaafurinayaa abumayuuna sidaa darteed ayuu u dilay garsoore waad u jeeddaa caddeemihii oo dhan hortaada ayaa keenay intaan wixii ka dambaysa in maxkamadda la sijiido waa laga wanaagsan yahay ninkan waxaan rabnaa xukunkiisa in la marsiiyo dood ayaan ka qabaa mudane garsoor dood ayaan ka qabaa ilaa ay hadda mudane kaashi inuu dilay abamayu wax caddayna looma hayo abukaati ukaada adiga bis waa ku dhammaatay imise lacaga barnoyaa qaadatay xayla qaatamaya aniga ee shaqadeeda keliya ayaan gutay kaashi arrinkaa maxaa ka leedahay haa abamayu anigaa dilay dabaqna waan ka soo tuuray sababtoo gabadha walaashaaya waxyaabahan ku sameeyey laakiin qalad baan galay ninkaas dilkiisa waan ku qaldanaa walaashay waxa dilay qof kale maahan ee waa ninkan hortiina fadhiya asigaa loo baana inaan dilo walaalkaashi aniga meeshaan wax kale uma imaan waxaan rabaa arrin sir inaan kuu sheego wax kale maana sitaas iga dhegayso hadda ka hor gabadha walaashaada wasiirka ayaa u wacay wuxuuna yidhi ii imaad gurigan igu imow guriga markay ugu imaadana qayle ayaa maqlay albaabkanka istaagay qaylidaa maxay taas dhah ayaan waxaan arkay walaashaada oo waxyaaba farxum oo ku samaynaya wasiirka kadibna uu dilay arrintan aan kuu sheegaayo waa sir sirtan haddii ay baxdan aniga waa ii dhammaanaysaa ilmahaygan agoon ayay naqanayaan waa ku baryaa kaashiya arrintaas siraan u ahaato oo kaale aniga miyaadba ii caga juglaynaysaa oo aad rabtaa inaad i disho waan ku dilayaa haa waxaad tahay khiyaanana kuma dhaafayo meel walbaad gashan waxaa baranaya inaan ka sasaan aamusa kaale aniga miyaadba rabtaa inaad nafta i dhaafsiiso adiga gabar kulama dhalanin haddii ay kula dhalan lahayd dilka aan gabadhaas dilo dadweynahoo dhan dhagahay faraha gasha lahaayeen kaale xaarayo kuma daynay kaale war qabta qabta waan dilaya war iisdayga maxaa samaynaysaa كاشي نيك حبتها كل बम बम भोले भोले काशी هاي maxaa kugu dhacani waa soo laabana wax yar la ii kaadaade kaala bal wax cunma ka hore u kaadi intaad la soo ku fee
كاشي أو سعودة كنت قلت لي محجري بما جرى كاذب أيديها qofka faayo ma soo dhamaysan ها أسكري قبل سار kaashi hoy kaashi fiiriya maanta saaxibka isqurux badan yahay waa soo labista ka waranhe wax kale dharkaan qurux lagu khasaaray anuu saaxiibka see dhabarka iga toogata kaale oo weliba aad iga dhigto canug baarnooyo ku dhacday maya adi waxaas ina u baxdid mama loo baahna seewa yaa qadi hooyaya mandarkan ka soo noqday ha hadda waa ka soo laabteen gurigeena joogaan waxbaa ka walwalin adiga waayahay mid ma ku weydiiyaa oo miiga jawaabaysaa ha maya haddii ku dhaw xataa waa i weydiiye lead dhiigga waxaan ku weydiinaa hooyo aabbe iyo gangaa isha ma soo saartay ma soo aragtay xaalkooda siduu ahaa maxaa ku hadlaysaa adig seewaya anaa soo arkay waa se kaa weydiinaa maxaa dhacay adig kaale baban hadalkiisa le amaa soo qaadatay ii sheeg bal see u soo raaca laakiin waxaad ii sheegtaa hooyo see u taalle ya maxaa waxda sheekadan ay maya waxaan rabaa inaan ogaado noo ii sheeg se u taalle maxaa la dhahaa hooyadaa qof qurux badan ahayd timaheedana way dheeraayeen laakiin ilkeyda iyo sanka ka hor siday kula muuqdeen marka arkaysa hooyo maxaa waay haddana sheekadan ii sheeg bal qofka markuu daa dhaqdo waxaan rabaa inaan ogaado no waad la socotaa qofka markuu daa dhaqdo ilkaha inay ka daadanayaan dhiigga hooyada ilkaha kama aysan daadan hannabaya walaalkii ani wax walba runta ah waa kuu sheegaan ku dhahay walaashaa gangaane sawirkeeda waa kanahay joornaalka lagu soo qori muujeedido si fiican u fiirsabe xabsiga ma igu wala rabtaa gabadhan walaashay maaha ee waa dibinaa indhaha maa la'dahay dibinaa maahan yaqay gangaa waaye 3 maalin ka hor ana ii imaadi wax walbana waa ii sheegtay waxaana ii tidhi abimanyuu inaa isguursinaan rabaa arrintaasaan kuugu imaadi inaan kuu sheego runaatii maanta guuldarada ayaanba ku faraxsanaa weligay anoo guuldaraysto oo faraxsan maadaama guuldaradaada guul ay noo soo hayso waa inaan xaflad dhiganaa oo xafladaan dhiganaynaa kaala taliisho maxaa u taagantee kaalnala farax soo fadhiiso halkaan imaad waa faraxsannaa maanta ujeediyo guuldaradaan ku faraxsannaa cabitaankaa la wada cabay jees aniga inaan guulaysto ma u dareemayo guuldaraan dareemaya laakiin guuldaro sidee aabbaay kaashi arrintiisa ayaan ka murugsanahay hadalkayga si fiican u dhegayso marka aad rabto in aad guulaysto waxaa loo baahan yahay qof walan inaad hormuud ka dhigato laakiin kaashii qof waala muusan ahayn haddaba muxuu ahaa aabbaay oo ninkaas si dhow miyaad u jeclaatay deefina walaalay macaani jecel iyo sheekadiisa waa inaad ka qaras baxdaa sheekadan waa ogtaa inaan soo dhoodhooblay haddii aad sheekadaas keentana annaga ayaa baxar gelin marka waxaa lagaa rabaa inaad ka baxdo waxaas ma ogtaa wax yar haddii lagaa shakalahay intaynu dhan baxar ayaan geli lahayn ma la socotiin naxariista aan kaashi agtiisa ka helay cid kale inaysan i dareensiinin waana dareemi waayo xilli aan asaga jaceyl u qaaday waayo abay hadda maxaa qaban kartaa waad la socotaa ninkaas xabsidaayna lagu xukumo maxaan samaynaynaa marka anigaa xabsiga ka soo saaraayo waxaana diyaar u ah dhakhtarka ugu wanaagsan inaan u geeyo abbaay macquul maan waxaas inaad samaysid tan kale mala socotaa ninkaas duugaad waxa aad ku samaysay wuxuu kugu samayn karaa bal ka fikir anigaa u diyaar u ah xaqiiqda inaan u sheego uunay cafin doonaa kaashi qof ayaa raba inuu adigu kula kulmo
kaashii sidee tahay sidee tahay sidaanaan ahay qof waalan weliba adigana waad la socota soo maha igaraal noqo kaashii wax badanaan isku day naftaada inaan badbaadiyo waan ku jeclaaday weliba si xad daafa maxaa sidaan ii yeeshay nolol wanaagsan ayaan isaga jiray laakiin adigaa nolosheeda baabi'iya sabab maxaa nolosheeda u baabi'isay sabab gobolka banaaris markaan imaanaya hadaf ayaan u imaaday qofka ugu horeeya anfacan adiga u noqday waraysi ani maba gaarin adiga waxaa taa qofka keliya oo banaaris igu soo wareejin kara qofkan waa aabbahe aabbe shaqada xawli ahayd maanta isla maalintaasaan ogaada maskaxda in lagaaga jiro markaas kadibna waxaan go'aansaday inaad noqoto qofka qorshahayga ii fulin lahaa maskaxda ayaana kaa degay wax walboo rabana waan kaa samaysan jiray waxaan kaloo ogaaday walaasha inaad si xad dhaaf u jeceshahay saayidaa u jeceshaha soo maaha gangaa gangaa waa walaashay si xad dhaafna u jeclahay walaasha ayaan kuu isticmaalay markaas kadibna shayga noloshaada ugu qaalisanaa ayaan kaala wareegay gabadha shuruutii la dhaho oo aan ku dhahay gangaa saaxiibadeeda waay run ahaantii walaashay ayay ahayd laakiin abay maxaad iiga baahan tahay oo aan kuu sameeyaa keliya waxaan kaa rabaa sheeko inaad ka sheekayso weliba sheekadan aniga kuu sheego markaas kadibna walaashay waxay kaaga sheekaysa sheeko aan aniga abimaayo iyo gangaa ka sameeyey adigana waad aamini weysay kadibna maxkamadda ayaan kuu diray hay maruu soo hadal shahaado aroos ayaan rabaa inaad ii samayso keen wiilka magaciisii sheeg be hal mar abimaayo bandhe adigane gangaa jodri gangaa jodri okay si aad arrintaas u aaminto darteed aniga qorshe kale ayaan sameeyey dad ayaana balamiyey si ay labadeennoo wada joogan oo xabadeeyaan sidoo kale rangiilaana waan la kulmay idhegaysa rangiila maalinba maalinta ka dambaysa kaashiya caafimaadkiisa wuu ka sii daraya mararka qaar wuu iska xanaaqa qofka ka soo horjeedana inuu dilo ayaa macquul ah waad aragta babiina iyo asxaabtii siduu u garaacay annaga waa inaan ka taxadirnaa sababtoo ah waxaa macquul qof inuu kow ka siiyo taasna dhib ayay nagu tahay taas see looga hortagi karaa marka ii sheeg waxaan kaaga baahanaa sidaan aniga ku dhaha oo keliya inaad samaysan adiga iyo asxaabtaada haddii kale dhibaataa dhacayso anigana dhakhtarkiisa ayaa mar walba la sheekaystaa waxaad nafartaan samaynaynaa noo sheeg lebis midka walaashay gangaa muxuu ahaa xaggees ka keentay run ahaantii waxa waaye lacagta sayila waxaan u baahanahay meed aan dad lahayn inaad ii keento mid dad aan lahayn ii keena sideen kuu keena arrintaas inaad ka fikirta adiga ayay shaqadaada tahay aniga waxaan u baahanahay gabar dhimatay oo aan dad lahayn inaad ii keento gabaryahay shaqada way weyn tahay lacagtana way yar tahay intaan waa horumaris shaqada markaad qabataad inta kale helaysaa tan kale dharkaa meedku gelleed anigaa kuu soo diri doono walaashaa gangaa dharkaan u keenay babiina ayaan u dhiibay xilliga maxkamadda la joogana dadka adiga kugu markhaati furaayo dhan runta ayay ka hadlaayeen qof maskiinoo daacada ayaa dilaa ka dhigtay maxaa kugu kalifay ii sheeg maxaad u samaysa arrinkan aargudsi balwaan ayaa rabay inaan ka aargudsado cadgoosi noocee ah ninkaas iyo aabbahay ganacsi ay shirka ku ahaayeen si uu hantidoo dhan gacanta ugu dhigo ayuu aabbahay kow uga siiyey anigana xilligaas 8 sano ayaan jiray walaalkay xataa wuu dilay
meesha way iskaga tageen 12 sano kadibna waxaan u soo laabtay aabbahay ninka dilay inaan ka cadgoosto dadka ay tusiisay iyo meelihii aan arkayo dhan ma been bay ahaayeen oo waxaad soo aliftay ahayn miya kaashi wax walba aniga ayaa qorsheeyey waxaad arkaysoo dhanna been ayay ahaayeen balwaan iyo wiilkiisana waxaan ugu talagalay inay u dhintaan aabbahay iyo walaalkay sida ay u dhinteen maxkamadda adiga iyo balwaan markii aad isku dagaasheen si qarsoodiya ayaan bistooladda gacanta kuugu geliyey beel ciyaar fiicanaad ciyaartay kaashi waan ku jeclaaday adigana dana gooniyaha ayaad igu wadatay jacaylkan kuu qaado waxaad ku badashay inaad gacan kudhiriga iga dhigto anigoo masaakiina weliba maya jacaylkaba noocaan hadduu isku bedelo dadkao dhan way ka aamin baxayaan kaashi aniga waan ku jeclahay weliba taxad dhaaf ayaan kuu jeclahay xilligaasna waan ku jeclaa haddana waan ku jeclahay weligayna waan ku jeclahay war beenta iga dhaaf maya carruurna maaha igu ciyaarin ma waxay kula tahay beentaada inaan aaminayo maya kaashi beenkuu ma sheegaayo ma waxay kula tahay ilintan beentaha inaan ku calool jileecayo lagama yaabo waxaad tahay qof been badan mana kaa dhegaysanaya warkaad wado maya beenkuu ma sheegaa waa runta gacalis inaad aaminto isku day waan ku aamina bis yaqay ha igu oynin ilintaada agteeda qiimay ka leedahay run ahaantii waana ku jeclahay ma ogtaa dad fara badan ayaan ilintooda arkay oo weliba horteeda ku weynaa laakiin uma aanaa calool jilcin laakiin ilintaada agteeda way ku weyn tahay ma garan kartaa sababta waan ku jeclaa mana kaa maarmo isa oynin ha oynin aniga inaan ku jeclaa soo moogid isha nolosheeda lagama yaabo inaan meel cidla aan kaaga tago sidaan kuu jeclaa may jecesha ii sheeg marnaba isma dhihin wakhtiga wuu idinka hilinaa labadiinna mala socotaa hooyo aabbe iyo abbaayo inaad adiga iga fogaysay sidaas taa waxaan rabaa inta nolosheeda ka dhiman inaad farxad igula noolaato ma raba adduunkan intaan sii joogo keliga inaan noolaado laakiin nasiibkan iyo ogolaanan inaan kula noolaado maya kaashi sidaasa dhihin nasiibkii miyaad ka hor imaan kartaa adiga maya sidaasa dhihin kaashi nasiibka way ka diiday aniga nasiibkaiyo ma kaa ogolo nasiibkaan ogolayn inaan wada noolaano ma ogola nasiibka cid ka hor imaan kartana ma laha aniga ma aqaan ninkan waxa ku dhacay mar walba qaantadan oo dhulka ku xoqaa hooyo u sheegaya raashinkay karinaysiisan ku daahin aabbana u sheegiyuusan igu qaylin walaashay xoogaa iyadan waxbarashadeedan rabaa inaan xoogga saara mugta inaan la tacaalo macnaa saan warkaan u wado dhan madaxa igu xanaano kowdhe madaxa ii reereekaa leh xididka qaba xididka haa allah ileh waa haysaa wareeji beellaad tahay anigu familkayga waa jeclaha mugtahay laakiin adan ku ta'kiidiha markaan adan ku raba beello xididka waa wada filimkan waxaa lagu tarjumay studio Farmbridge Mogadishu عكاسي تماسيك فلان في بقاقية
एक चुटकी रोजाना तुम हंस